laascaanood oo wajahaysay 3 sannadood ee ugu dambeysay go'doon siyaasadeed iyo mid ganacsi ayaa xasan sheekh maxamuudna waxa uu ugu daray mid dhaqaale iyo mid maamul waxaana uu si bareer ah habeennimadii xalay ahayd uga saaray buugga maamul goboleedyada Soomaaliya weerahanina waxa ay noqonayaan xaqiiqadii ugu qalareyd ee reer laascaanood ay wajahayaan iyagoo filayay inay ka garab muuqan doonaan maamulada Soomaaliya maadaama oo ay midnimo u taagan yihiin inkasta oo magaalo kaliya ay yihiin haddaba maxay yihiin hadalka xasan sheekh maxamuud labada arrimood ee uu daboolka ka rogayaa gaalkacyo laga soo bilaabay ilaa meesha u dambeysay Jubbaland tamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa la isku dhihi jiray ee magac gaar oo kala ma lahayn Jubbaland timid koonfur galbeed ku xigsatay galmudug ku xigsatay Hirshabelle yaa u dambeysay samaysantay xaqiiqada koowaad ee uu hadalkani dibadda keenay ayaa ah in Hirshabelle maamul ka dambeeyay oo Soomaaliya aqoonsan tahay aanu jirinin waxaana ay uga dhigan tahay magaalada laascaanood wejigabax iyo run aan loo miidaandeyn oo xilli aanay ka filaynin xasan sheekh maxamuud inuu weerahaasi dibadda keeni doono uu ku soo beegay madaxweynaha Soomaaliya ma aha markii ugu horeysay ee uu soo bandhigo in aanay fiilla Soomaaliya aqoonsanayn maamul ka jira gobolka Sool barigiisa hore ayaa uu sheegay gobolada waqooyi waxa ay u yaqaaniin ee Somaliland inay siyaasadeedii bedeli doonaan iyagoo isku dhameystiranna ay ka doonayaan wada hadal iyo in xiisadda labada dhinac u dhaxayso hoos loo dhigo taasi oo aan u dhaadhicin dadka ku dhaqan magaalada laascaanood balse waxa ugu xigtay talaabadan kale oo uu habeennimadii xalay ahayd ka qaaday magaalada Dhuusamareeb oo ku sugnaa waxa ay ka rogaysaa Muqdisho inaanay aqoonsanayn maamul ka jira magaalo kaliyaata balse ay si siyaasadaysan u aqoonsan tahay iyadoo ku xumaynaysa Somaliland iyo Puntland hase ahaatee haddii ay noqoto dhinaca shuruucda iyo dawladnimada aanay buuxinin deegaankani maamul goboleed inay noqdaan ku biira maamul goboleedyada tirada badan ee uu sheegay xasan sheekh maxamuud habeennimadii xalay ahayd Hirshabelle inay ugu dambeysay isagoo oo ku faanaya waxqabadkiisa intii uu joogay ayaa waxa uu daboolka ka rogay in maamuladaas oo dhami ay dhismeen intii uu joogay balse markii hore ay shuruuc ahaan u qornaayeen weeraha kanina waa kuwa qalbi jab ku ah dadka laascaanood ee aaminsan in ay magaalo kaliya ku helayaan maamul hoostaga magaalada Muqdisho balse waxa loo adeegsanayaa cadaadis siyaasadeed iyo culeysyo ku wajahan Hargeysa iyadoo aan iyaga wax baahi ah loo qabinin laguna abaal marinaynin halgankii ay inta muddada ah kula soo jireen jiritaanka Somaliland sida uu sheegay Garaad Jaamac Garaad Cali mar uu cabirayay siyaasadda Muqdisho ay ku macaamilayso oo muhiimadda ay siinayso Hargeysa sidii ay uga dhaadhicin lahayd midnimada balse aanay danaynaynin deegaamada kale ee midnimo doonka ah oo laascaanood ay qayb ka tahay inkastoo aragtida halganka ee ka hana qaaday deegaamada tani ay ku soo dhisnayd ka soo horjeedka aragtida Somaliland inteeda kale oo dhinac kasta ay u jihaystaan ay iyaguna dhinaca kale u jihaysanayeen waxaana ay taasi ku abtirsanaysaa xilligii aanay jirinin dawladnimadu ee qabaa'ilka Soomaalidu ay xifaaltamayeen oo weli deegaankani aanay hore uga marin xaqiiqada labaad ee hadalka xasan sheekh maxamuud uu daaha ka rogay ayaa ah Soomaaliya waxa uu aqoonsan yahay Jubbaland iyo Puntland inta u dhaxaysa taasina waxa ay ka muuqanaysaa hadalkiisa oo marka uu soo qaadanayo weeraha kan sida weyn u niyad jabiyay dadka reer laascaanood ayaa waxa uu ka horeysiinayaa dalka maamullo kama ay jirin laga soo bilaabo Jubbaland ilaa iyo gaalkacyo tani waa mid kale oo muujinaysa inuu ka muquurtay deegaamada Somaliland gudahooda inuu maamul goboleed ka sheegto ka tirsan Soomaaliya iyadoo xildheerayaasha dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda Soomaalida falaqeeyaanaha ay sheegeen madaxweynaha Soomaaliya waxa uu eedinayaa ama si uu durusaya wada hadal dhex mara Somaliland iyo Soomaaliya kaasi oo ay ku garnaqsanayaan Hargeysa iyo Muqdisho iyadoo uu sidaa darteed hoos ugu dhigay hadaladii xanafta lahayd iyo weeraradii qaawanaa ee xukuumaddiisa kaga iman jiray Somaliland intii uu talada hayay inkastoo wada hadal dambe oo ay ku lumiso Hargeysa aqoonsi iyo kalsoonida caalamka sida ay ugu soo hor fariisanayso Muqdisho aan la garanaynin ayaa haddana weeraha kani waxay qayb ka yihiin xudxudasho iyo baashayn siyaasadeed oo ku wajahan magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland